islaan shaydaanad ah oo furitaanka iyo balaayada guryaha burburintooda ka shaqaysa yaa aragtay nin daacad ah oo fiican oo gurigiisa jecel islaantiisii bay u timid waxay tiri ninkaagu markuu shaqada ka yimaado galabtii muxuu sameeyaa waxay tiri gurigu ila jooga ilmuhu ila hayaa ilmuhu waxa u akhriyaa jikaduu galaa cuntaduu noo kariyaa waxay tiri markaasaa ninkuu noqonaya oo ragga uma tago oo meesha lagu soo qayili iyo suuqa ma aado oo ragga lama soo fariisto mayay tiri maba aadaba ninkaygu shaqadiisa inuu salaada iyo masaajidka u kici bas ah haddii kale gurigu ila joogaa ilmuhu hayaa gabadhii marka waxay tiri ma dhici karto waxaasi nin maba noqon karo kaasi ninkuuma aha ninka ragga iyo waxay tiri waa inuu ragga aado ragga la soo sheekaysto halkaasuu raganimada iyo sida dumarka loo dhaqa ka soo baranayaa gabadhii nicmada ku jirtay ee ninkeedu guriga la joogay galabtii dambe ninkeedii ku tiri saan ima anfacayso adigu nin fiican ma tihid ragga ma aadid suuqa ma aadid guriga madax fadhida naag baad noqon rabtaa miyaa maxaa kugu dhacay ragga ma suuqa aadid ragga la soo sheekaysatid gabadh ninkii waa isku naxay maalin iyo laba iyo saddex sidii bay ku celisay kadib ninkii waxaa qasab ku noqotay galabtii markuu guriga yimaado oo qadeeyo inuu baxo suuqa aado ragga jaadka cunaya oo dulliga ah oo akhlaaqda xun oo wax xun ka sheekeynaya uu u tago fiidkii dhan la soo qaatay ilaa guriga islaantii baa ka fijiso waxay ku tiri kac rag la soo sheekayso sidii buu yeelay islaantii shaydaanta ahayd oo islaanta wax ku akhrisay baa ninkii doonatay jidka u gashay ninkiibay dhexda ka shukaansatay way la hadashay waxay tiri niyahu guur ma rabtaa saan ninkiibay shukaansatay way qaadatay tii miskiinta ahayd oo ay ku jirtay buu furay iyadii buu guursaday kadib tii baa ogaatay ninkeedii iyada ay dhibtay tiri guriga ka bax tii ku tiri ninka guriga ka saaro suuqa u dir inay ninkeedii aroosatay way u tagtay waxay tiri naayaa maxaad ii lugoysay waxay tiri ooyaa la lugooyaayoon doqon ahayn dadka doqomada unbaa la lugooyaa nin fiican buu ilaahay ku siiyey marka caqli baan helay aan kaaga qaato waan kaa qaatay hadda fursad ma haysatid waa ku dhaafay marka dadka shayaadiinta ihi waa sidaas dadka meediyaha fadhiya waa dad shayaadiin ah oo shaydaan u adeegaya oo inay dumarka kale ee nabadda ah guryahooda jooga waxun u sheegaan suuqa iyo fasaadka baraan ku talagalay ilaahayna shartooda ha naga koriyo waxaan leehayna culimada Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanka shaqo weyn baa u taala dadkaas in la waaniyo oo khayr la gaarsiiyo oo la yiraaha guriyo burbura cid ay dan u tahay ma jirto khayrku wuxuu ku jiraa guriyo degan reero isjecel caruur ku koraysa laba waalid oo isjecel dhexdooda ku koraysa ayay ummadda faa'iido iyo khayr badan ugu jirtaa